annaga shacab ahaan dhalinyaro ahaan hal dardaaran baan idin leeyahay fiiriyo horta dhalinyarada shacabka odayaashu waa sii socdaan odayaasha aniga ila mid waa sii socdaan ma la hadlayo dhalinyarada la hadlayo 20 jirada iyo wixii ka saray dalkan yaa leh idinka leh siyaasiyiintan isku warwareejinaya oo iyagu haysta waxa u daliilah inaanay idinka dan idinka lahayn dalka aad ku nooshiinayo mustaqbalkiisana dan ka lahayn hal mid oo isaga iyo caruurtiisu ku nool yihiin oo idin la duruuf yihiin ma ii sheegi kartaan waa maya madda labaad su'aal labaad idinku soo celinaya idinka doorta qabiil baa ku doorataan qabiilo baa la isugu doorta odayaashiina idin doora masirkiini bay xadidaan mustaqbalkiini bay xadidaan wiilka sacuudiga wiilka jooga carabta si imaaraad jooga bahalkii jooga muxuu ku helay tacliin muxuu ku helay nolol muxuu ku helay shaqo muxuu ku helay baasaboor oo adduunka ku maray adiga ay ku weyday xaq uma lihid miya ma xoolaadan haysan ma dhul baadan haysan yaa ku seejiyey siyaasiga reerkaaga baa ku seejiyey aniga hadda igu soo xanaaqaysaa waxaad madaxdeeda reer hebel baad u jeedaa أنا أديكو سو جيسريسا وأنا أنيق هيكو سو جيسر نولش هذا الرادين أنيق نين كان أديك الرير كاغا يا نولش كستيجي أديك والله بتجرك إن ويلشاس لأن يرضى أو سيدون الرادينيسو جامعات الرادينيسو في عن أو شقاء الرادينيسو أو ضلال كلا أبلاه أمريسو ورنين كان قرابة كل قبيل كاغا أياكو سيجي أو كبابي أو كحبالي أو أن كان نحيين من الجيران أنيق رنتان إذن شيء wax badanna waa idin sheegay siyaasiga Soomaaliya 25 sano ka shaqeynayay ma aha inay jagan naga soo doontaan maanta ma aha wala mid kamid inuu jagan naga soo doonto maaha mana aha xaq inay naga soo doontaan waayo 25 sano waxa hadda aan akhrinayno iyagaana dhigay soo iyagu wasiir ma ahayn soo iyagu madaxweynayaal ma ahayn soo iyagu jilxiyaal ma ahayn mid walba wuxuu yimaadaa filla Soomaaliya isagoo baabuur qafilan ku jira 25 سنة ودميس بابور قفلن بو كجرا بابور قفلن بو كبخا واي ماذا متكلا اي ماذا بابور قفلن كو سو بكاره حتى ما يقان بكاره ما يقان حمر وين يا شنغاني ما يقان عاصمه وي ماذا غريغاسو كو كوبان yahay buurta saaran hadhowna uu baxa oo markuu baxo xagee aada balawaa wardalkan adiga ma lahayn miya maxaad ugu noolaan weey meel lagu daaweeyo maxaa uga samaysan weey meel ku noolaato maxaa uga samaysan weeyday bal weydiiyay idinka waa baxa Istanbul Ankara Abu Dhabi Dubai Nairobi meelay kala xagaha ee guriyaha ka dhisan jireen way ku noolaan jireen Qatar Doha dawlad kala waxay siinaysaa marka filadaasiya cuntadaasiya garoosiga biilkaasiya 4 sano 5 sano la soo biilaa markii 4 sano doorasho la gaaray doorashada anaga waxay ku balihin markaas iimaan doorashadii baa joogtaa 4 sano cusub baan rabaa 5 sano cusub baan rabaa oo maxaa markii hore ismaysan soo taayiga tagtay oo aadi meeshaas haddana waa iimaan وانا لا استخفاف صدي إلهي قرآن كريم كأوحو إذي قومك فرعون وحو يري فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين ما هنا فاسقين قلنا آيات هدايا وحن يدكسوا علينا آيات سورة الحجر وحن يدكسوا علينا وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين من مغليسين ملقي وحو كيري dadkii naarta markii ay la xisaabtamayeen uu ku yiri laqad ji'naakum bil haqq haqqa muxuu yahay nolol yimi muxuu yahay soo xaq quraankan maaha idinka ay weydiinaya soo quraankan maaha quraankan kitaabka inta ku qaadano nimanka siyaasiyiinta ma kula xisaabtami karna ma oran karna kan hadeedina fulinayn oo cadaalad keenayn oo wax dhisihayn oo adduunka dhalinyaradan dalkan ayaan ku noolaanayn oo shaqo ka helayn oo dumarka iyagu asturnaanayn oo ceebaha iyo adduunka nala ku maadeysanayo aydina ka soo oranay baxa meesha rabtaan aada meelihii leedii ku biini jiray ordada aada nadaafa
haddana waan leeyahay anaa codkiina ku oranaya war na dhaafa ma rabno ordaya meelihii laydinku biilaya aada ma idin biilna annaga idin biilna yaa idin biila yaa wax ka qaadataan haddeera boorsooyin la soo qaadanaya dawlado kale laga soo qaadanaya ma idinkaa siiyey boorsooyinka yaa siiyey xaggee laga soo siiyey dawlado kale ka soo qaateen sow maaha annagay nagu dulaysanayaan annagay nagu gaajaysiinayaan annagay nagu abaaraysiinayaan annagay nagu amni la'aanayaan war ani 70 baan maanta jiraa dalkayga raba inaan ku raaxaysto idinka dhalinyaro xaggee idinka horraysa ma sidaasoo kale noqonaysaa warkaca oo dulligaan iska rida tiktok baa waxaa laydiin soo saaraya hebel waa socdaaye waa baxashadiisiiye yaa la dooranayaaye waa dalkii uu hagaajinayaaye goor waa dalkii hagaajisa sawtaa shalay joogtay aan gaajada ku noolay saw dhalinyaradii weli shaqa la'aan maaha saw afrikaanka ciidamada afrikaanka ah dhegaysta fiiriya nimankaas inaana xishoonaynaan idiin sheegaa weliba waa indha adag yihiin madaxtinimay rabaan weliba inay soo noqnoqdaanay rabaan weliba inay isbedelaanay rabaan dhegaysta ilaa 2007 maxaa ka dambeeyey 2007 maxaa ka dambeeyey 18 sano soo ma 18 sano ma tahay wiilkii dhashay 18 sano ma jiraa hadda ilaa 18 sano meeqa madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaarayaal iyo wasiirro 70 ah baa isbedelay oo xukuumadda sheeganaya wali ciidan afrikaana jooga oo nal ku biila halka daliil ma idinku filan yahay mise idinkuma filna maxaa diiday dalkan ma dhalinyaro la waayay ma ciidana la waayay ma dhalinyaro geesiyaal la waayay ma lacag la waayay maxaa la waayay 3 bilyan oo dollar baa u qoran 2 bilyan iyo 3.3 euro bay leeyihiin EU-du waxaan ku bixinay ciidamada afrikaanka oo jooga Soomaaliya 2 bilyan iyo 300 milyan oo euro macnaha waxa way 4 bilyan ku dhawaad oo dollar waaye ciidan Soomaaliyeed ma samaysan miya ma samaysan war maxay nimayo ma naga waalan xageena loo ka riwaayadaynaya ma rabaan nimankaan inay wax idin dhisaan iyaga shaqaysta iyaga jaakadaha soo xirta ma rumaysanaysaan mise ma rumaysanaysaan haddaa rumaysanaysaan ordayoo heeriyada iska ridiya niman kale cadowga dalka haysta waa siyaasi xun oo naftiisa u shaqaysta oo jeebkiisa u shaqaysta oo magaciisa kaliya u shaqaysta cadowga koowaad ee dalkaasu leeyahay way ضمير راوة إلهي وحير المنافقين هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون نبي محمد وإلهي كوير منافقين تلون والله لا تكنا أيه لا صلاة أيه لا مارة الحجنا ولا عمره سنة هم العدو فاحذرهم كدكتونو وعدو قدرتها ويقوي وايو قبل الصومالي ما أنتوا وحكوا أم ليس ما اللي يدرح بيكون مليسا وايش كل ما نيسا إلهي ما نكون داري حق بيا إلهي نكون داري ما حق با نيروبي يحملها يأتي السؤال يسان كمان مركز ليش هل اسمه تالو لو كل صورة أو يكون شو ما يسمع مركز صار عليه هذا مركز سايدين دفاع أنت إيش بعيان أنا مش هل هبل بعده جدا هل هبل كله كلتك maxayga khusay reerbe waxayga khusay ma jiraan adaan ku naxaya adaan ku leeyahay aqligaaga isticmaal dadnimadaada isticmaal yaan lagu dulaysan war siyaasi beenaala had wuxuu ku leeyahay waxaan dhisaynaa oo shan la tasal maxaa u dhisaysa maana tustaan xisaabta maana tustaan waxa nama tusi karaan because kama shaqeeyaan inta ka badan inaan u sii dhaafo ma rabo iyaguna waa og yihiin idinkuna waa ogtihiin waana ka sheekaysaan marka waxaan leeyahay ummad dhalinyarada Soomaaliyeed ha taageerinina dulmigiina ha taageerinina dhihigiina daadintiisa
هتاجريننا قاعدين هتاجريننا دول لماذا كوينكو هاي هتاجريننا شلي waxaan tusay baasaboorka Soomaaliyeed oo aan jeebka ku wato ma u jeedaa afar safaaradood aan geeyay waa la igu soo tuuray waxaan tusay rag hadda ma shalay maxaan tusay ya baasaboorkayga Soomaaliga oo 1985 safaaradda Mareykanka intaan saa u geeyay hal sano oo multiple la igu dhiftay baan tusay hal sano oo multiple la igu dhiftay waa ka soo noqday mana aan rabin Mareykan inaan dego mana u socon safar baan ku tagay kaliya iyo dan laba asbuuc baan joogay waa ka soo noqday sanad baa la igu dhiftay sanad waa ka soo noqday 86 baan tagay markay dhamaatay sanad kale la igu dhiftay qaar baa waxay u maleynayaan anaga inay waxaan hadda nagu cusubtahay anaga daba ordin waxaan tusay shalay marka darhad fasaxana u tagay 19 bishii January dawladdu waxay dhacday 20keedii dawladii hore markasiga ahayd ama dawladii dhexe 14 January waa inuu tusi kara sawirkiis Facebook soo dhigaya ark 14 January ba safaaradda Jidda fasax ahaan waxay igu dhifatay fiiso ka soo noqod Mareykan oo 14 January 19 mana aan isticmaalin mana ku tagin Mareykan jeebka iyadoo igu jirta waxaan soo aaday oo Ilaahay igu og yahay 14 January marka fiisada la igu dhiftay oo ilaa April ay ahayd fiisa faalid ah waxaan soo aaday dadkii Soomaaliyeed oo iga hor yimi oo dalkii ka soo yaacay baan arkay ma aadin Mareykan waxaan soo aaday xuduudaha ayaa soo aaday waxaan imi meesha la oran jiray maxay ahayd maxaan ku sheegaa xiriyaha halkan la u dhawaayay sheega Dobley maxaa la oran jiray dhinaca Liboya soo istaagay meeshaan Mareykan ka aadi lahaa ya qaxootigii halka u horeeyay 14 markay soo galeen meeshan soo galeen masaajidada u horeysay caruushka ahayd baanu ka dhisnay ani niman kale oo taangan ka dhisnay majango baan ugu tagnay dadkii Soomaalida soo qaxay baan ka hortagay ma aan aadin Mareykan iguma cusban oo mana cusban oo kuma bootayo sharaf iyo qaran baan ku soo kornay anaga magac baan ku soo kornay taasana gubaysa ma naqaan waxaan meel ka yimaadeen ma naqaan maxay dawlad kale waxay oranaysaa adigoo madaxweyne Soomaaliyeed kaalay guri baan ku siinayaa caawa qabkii Soomaaliyeed caawa saad ku aqbali dadkaaga ma weydiisatay ما جرت خبر واحد ما جيران وانا حقائق بان idin kala hadlaya wax jiraan idin kala hadlaya haddaan hal kelimad ku daro oo been ah qabsada Maxamed Idriisow halka hortiina ah ayaan maaragtay ka cudur daaranayaa halkaasaan ka cudur daaranayaa waayo waa waxaan ogahay mid baan la kulmay waxa laga yaabaa inay istiraadaan dadkan ma u naseexaysan dad badan oo iska niyad fiican baan leeyahay walaalayaalow waxaan naga noo sheegaysan nimankan madaxda ma sheegta ha mid ugu sheeg waa ugu sheegna ma rabaan ma ku naxayaan danka ma leh kursigay rabaan bes kursiga iyagoo ku raaxaystaan kursi marka dhalinyarooy waa idin sheegay ilaahayna waa marxaati anigu ilaahay baan marxaati gashanayaa aakhiran u socdaa xaggaasaan idinka dhowahay waxaan idin sheegayaa dalka idinka leh ilaashada soo dhacsada ka soo dhacsada dadkan idinku tijaaraysanaya idinku ganacsanaya ka soo dhacsada waana idin sheegaya the last 25 years siyaasaddaas wixii ku jira iyo wixii la halmaalay xagga in loo shubaabay u baahan yihiin ma kulaha nasiib Soomaaliya ma kulaha way soo fashilmeen halkaanayna soo dhigeen maanta Trump waa qashin inuu yiraahdo bay gaarsiiyeen ayna u jawaabi karin hatta afdhihi karin كلمة حتى ينديك هدايا آمين سنين قشن وكل شيء جاي ما يدهان ور أنجا قشن مني ور أنجا نلما يراهض ده شرف لنا ده تاريخ لنا ده الله لنا
dad hanti lahana mana oran karo maxaa dhacay ma oran karaan because idinka idinma matalaan waxa aad dareemaysaanna ma dareemayaan shilin xun oo xaaraana ka lumay marka walaalayaal dhalinyaroy dhulkiini raadsada dad sharaf leh Soomaali way ka buuxaane dadkaas raadsada qaar baan arkay waxay ku oranayaan hebel iyo hebel ka dooranaysa murashaxiin midna dooran maayo ku masraxtaag midna ma dooranayo maxaa ku doortaa iisha ma iskool buu carruurteeda u sameeyey ma isbitaal buu u sameeyey ma waddo u jeex maxaan ku doortaa iisha ma magac buu ii yeeray adduunka saasaan magac u lahaan jiray safaarada hortooda layga soo dhaweyn jiray maantana 70 jir waa laygu soo tuuray aniga kaliya maaha ogaada nin mas'uul ah oo Soomaaliya aan isdhihi karo waa qofka labaad oo baarlamaanka ugu sareeya baasaboorkiisa inta la geeyay safaarad Ankara busaato baa lagu soo tuuray oo diblomaasiya baasaboor diblomaasiya dawladdu wuxuu ka hayaa jagada ugu sareysa kaas la soo tuuray maxaa dhacay bale ma aqoonsanin bale midda labaad diblomaasiya baasaboorkiina diblomaasiga ordaya idinku qashinku ku tuura sababtoo ah habraha ilaa maalmood halka kolay diplomatic passports ba waxa laga soo ururiyo xuduudaha Greega iyo Liibiya badeeda lagu daadiyay ba laga soo ururiyay ma halkaas aan oo dambeysay anaga seen lagu bixiyay yaa siiyay shalay ba Ireland nin passportka diblomaasiga sida oo gabdho ku tahriiminaya lagu qabtay 4 sano iyo bar lagu xukumay joornaalada ku taal yaa bixiyay joornaalka yaa bixiyay waa xisaabtan sheegay yaa bixiyay passportka diblomaasiga yaa siiyay qof aan halkaan markaan min Nairobi 2007 waxa lagu yiri passport diblomaasiga qaado meelaha fiisooyinku ku sahlayaayo waxaan markaas waxaan arkaa dad iska Soomaali caadi ah wuxuu leeyahay aniga waa soo qaatay passportka diblomaasiga soo qaatay xaaskana waa soo qaaday carruurtana waa soo qaaday ma dawladda u shaqeysa maya oo ma qaranka muhiimad u soo qabanaysa maya oo maxaa ku siiyay passportka diblomaasiga adigu see ku aqbashay haddii waxaan musuqmaasuqa ka buuxa oo ilma adeertaay ay ku soo siiyeen adi ma qaanis wallahi inaan naftayda u ogolaan inaan qaato passport diblomaasi wallahi inaan u ogolaan waa diiday wallahi billah maxaa la igu siinaa baa ma dawladda u shaqeeyaa ma wasiir baan ma safiir baan ahay ma shaqo qarab baan soo qabanaya muwaadin caadi aan ahay passportka caadiga oo muwaadinka baan qaadanaya ama la igu diido ama la igu siiyo waan xisaabtu ku soo noqdaan marka passportka waa qiimo beelay oo qarankii baa qiimo beelay oo dadkii Soomaaliyeed baa qiimo beelay ee sida isu dhaama dhalinyaradina la hadlaya odayaasha sii socda waa akhri sii aadaya talawun bay siin karaan laakiin dal raadsada dalkiini waa afduuban yahay koox xisaabada oo istaqaana oo saaxiib ah oo isu dhiibta buu oo afduuban yahay warshad laydin dhismay jid laydin dhismay deked laydin dhismay airport laydin dhismay diyaarad laydin dhismay war maxaan diyaaradda soo raacay waxaan idin iri hadda ka hor muxaadaradayda waa la soo qaatay 2012 baan jeediyay Minneapolis baan ka jeediyay qandalaan ka soo raacay diyaarad Somali Airlines oo tigidkeeda la iigooyay oo asbuuc walba iyo jimco walba Muqdisho intay ka timaado gaalka ay fariisato boosaaso fariisato ayay jimco walba qandala fariisato ayay calulo ku hooyeen jirtay subaxa sabtida bay ka soo dhaqaaqi jirtay markaasay qandala soo mari jirtay oo boosaaso soo mari jirtay oo gaalka ay soo mari jirtay oo xamar galabtii ima jirtay xagga kalena saasay waqooyi ugu bixi jirtay dhanka kalena saasay ugu bixi jirtay waa Somali Airlines waa 1972 ka soo tag 1985 86 andaga diyaaradda Somali Airlines waxay tagi jirtay Frankfurt waxay tagi jirtay Cairo waxay tagi jirtay Jeddah waxay tagi jirtay Dubai ay Abu Dhabi bay tagi jirtay Emirates ma lahayn diyaarad ma lahayn imaaraadku diyaaradan hadda Emirates leh ma jirin diyaaradan Qatariya hadda la yiraahdo ma jirin war taariikhdiina ma xusuusanidin miya waxa haydan ma xusuusanidin miya 25 sano 30 sano baa waxa lagu leeyahay Somali Airlines wala soo celin karnaa maxaa loo celin karnaa you are fired all of you fired dhammaantiin waa la idin fire garaynaya
shaqada la idinka cayrinaya haddaad shayga qaban weydo dad qabanaya imanaya adeer maaha booska inaad fadhido waan qaban waayey xaggay ka dhacday hebel baa halkan ciise xagga maray tubnaan baa xagga maray waxaas waa nonsense waa sheeka barelay waay waan imaaraad diyaaradeeda waxay ku samaysatay laba diyaaradood can you believe ma rumaysanay ma iga rumaysanaysaan diyaaradda imaaraadka oo hadda la yiraahdo waa number 1 annagu markaan diyaarad lahayn oo adduunka maraynay diyaarad ma ay lahayn Dubai laba diyaaradood oo kira ah bay Pakistan International Airlines oo diyaarad caalami ah markaa ahayd bay laba diyaaradood ka soo kireysteen xataa ma iibsan karin anaga waa iibsanay markaas ma iibsan karin laba diyaaradood kira ah bay soo kireysteen bilootayaal ma lahayn annaga gabdhaha bilootayaal aha gabdho baa bilootayaal ah bilootayaal xataa ma haysan imaaraadku maca bilootayaalkii bay ka soo kireysteen Pakistan labadii diyaaradood iyo bilootayaalkoodii bay diyaarad ka soo kireysteen halkaasay ka soo bilaabeen airportku saas meel ciida buu ahaa oo airportadeenaan inaga had tuulooyin ku yaalo kala takamid dadku wadamadooda iyo dalkooda iyo waxooda bay u shaqaynayaan annaga kuwan uma shaqeeyaan dal ana idin sheegay iga qaata ama qaadanina ma u shaqeeyaan ma gubayo dalkaanu ma xanuujinayo jeebkiisa gurigiisa filadiisa maxaa Nairobi ka dhistay muxuu Dubai ka dhistay muxuu Ankara ka dhistay muxuu halkaas xaggay ka keeneen xoolaha xaggay ka keeneen mushaarkoodu waa $500 xaggay ka keeneen lacagta ay daalaha ku iibsanayaan xisaabtan baa jirin isma xisaabtan ma jiro gabadha Sweden joogta shokolaataha haday iibsato ama koob qaxwa baa lagu qabsanaya dawladda qabsanaysa dadka qabsanaya shacabka qabsanaya marka walaalayaal war waxaan waa layna duleystay qabiil baa laynagu duleystay nin walba intuu yiraahdo reer hebel baa loo jeedaa kaalaya aan idin khudbaye ma loo jeedo reer hebel waa kursi ay fuulayaan reer hebel danka ma laha hadday reer hebel danka leeyihiin bal waa kaas kuwa idin la qabiilka ah oo madaxtinimada qabtay oo wasaarayaasha qabtay oo wasiirada qabtay deegaanadii iyo idinka waxay ka dhiseen bal istus koob ma idin caanayeen idin ma caanayn koobna iyaga shaqaysta iyaga xoogsada hadda inta garan weydaan wama ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين بايدن حيست annaga ma aanan dulmin buu leeyahay iyaga isdulmeen yeenan isdulmin dalkiina soo dhacsada sharaf ugu noolaada dad wanaagsan Soomaali way ka buuxaan keensada dad wanaagsan doorta dad wanaagsan la soo baxa diida maasuqa inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin waxaan noqonay ummadda ugu fasaad badan adduunka la yuslihu amal al-mufsidin ilaahay dad fasaada ma toosiyo xaaladooda waxay leeyihiin Singapore aan ku dayanayna Malaysia aan ku dayanayna Singapore waa kan kitaabkiisii akhriya odagii madaxda ka ah ee Chinese ka ah ee 30 sano ra'iisul wasaaraha ka ah wuxuu yiri maalinta shaqada qabanay baan waxaan ku tashanay $1 oo na soo gala isagoo $1 ah inuu dadkii iyo meeshii uu ku socday uu gaaro baan ku tashanay waxaan sheegay naga goyn madaxda wasiirada inaan ka bilowno musuqmaasuqa dadka oo laynkooda soo galo 5 wasiir bay ka bilaabeen oo qaarna xabsiga la geliyay qaarna laga riday shaqadii qaarna ay isdileen inta la soo gaarin sidaasay Singapore nadiif kaga noqotay musuqmaasuqa adduunka dhan uga marxaati kacay annagana isla liiska Singapore ay number 1 kaga qoran tahay baan waxaan kaga qoran lahay numberka 180aad ee ugu dambeeyay baan kaga qoran lahay wali waa hadlaynaa عرها سو جوابان ما جوابي كران ما هذلي كران وإلي السنة يلوي ما هذلي كران they cannot talk they cannot the proof is there هذه محكمة شرعية يجرتو هل كان يتالله قفك أغير وعن وحدين وقفك هوشي سيقبي كان هوشي سيقبي إيا كان حذين واسكمت لابدو بوعزلين شغال لو مديبو إسلامكو قفك قلتك يرعو كدعو عدالتي سالة درا
فاسق بو نقضة إلهي سبحانه وتعالى وحليه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون لمن كاسوا محي فاسقون كن نقضة قبر بوحو يري قبر ناس واسنيست هي أفر مرخاتي أو أركي هدانو كانين 8 جدل بالغوري فنيا كو مركا لباد ولقي الشهادة لقما مرخاتي لقما أقبليه مدة صدحات فاسق بالا قرية شقنا اللوم الديمنايو وحنا اللوم الديمنايو والإسلام كوركي سوى عدي فاتعنوك ميشان يالا لا إيمان هذا بروف كيدي شغله ولا قاعدين يا مركا دد يهو سوماليات دد يدين مقاني ما جيران أنا يدين شيء كوا حلا إذا ما درت إذن الله أما هادر ستين إذن ما مقنا دد كان هدا استيديهين oo dalka ay hadda maaragtay ku kala qaylinayaan ma ani hebel lama hadlay ani hebel uma tagay ma anaga dushayada ku khamaaraysaan marka dushayada ma ku khamaaraysaan idinka waxba idinka ma maqnaa idinka ma baacsana filooyin baad ku nooshiin dibadaha daaraha ka dhisateen caruurtiinna dibadaha geysateen dadkan baad marka ku dul khamaaraysaan miya iyo mustaqbalkooda iyo sharaftooda iyo dawladnimadooda ayaad ku khamaaraysaan inaad joogtaan waa rabtaan inaad soo noqnoqotaan waa rabtaan inaad isku bedeshaan waa rabtaan no ma sii socon karto arrin sii socon kara maaha waxa Soomaaliya ka jira haddaydinaan idinku qabanna doonta ayaa degaysa waad arki doontaan way inala degaysa inagoon rabin bay inala degaysa dhammaanteena musiibada ay naxaaqaysa aan iska gaarno aan isbadbaadino anigu intaasaan idin kula dardaarmaya ilaahay subxaanahu wa tacaala tawfiiqdaana waafajiyo dalkan iyo dadkaana ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariisa u soo dejiyo dadkooda wanaagsan ilaahay ha ugu dambi dhaafo dadkooda wanaagsan rag iyo dumarka ilaahay baryaya ee xufaada ee quraanka khulaya ee sujuudaya ee rukuucaya ee kitaabka ilaahay akhrinaya ee ilaahay baryaya ilaahay kuwaas hay noogu naxariisto kuwaas Allah hay noogu naxariisto sababtooda Allah hay noogu naxariisto naxariistiisa Allah nagu soo dejiyo إلهي أمضى صواد هورابي نحريستي الله كسودجي برواقا الله كسودجي نبت قليا الله كسودجي قلبي يضوض الله يصبري برعد الله يصمري إلهي سبحانه وتعالى بركي لن يرد أن الله بركي حوقود الله بركي أقونتود الله بركي قبل يويل البه حمانت الله كرهم لن يروي هداد ربطان إناد أمض واحترتان كفوا هذا وحكى أتكون جرتانه اللي يكون مشغولية تيك توكي أنا صو صاري قبل الضبط اللي نحكي صو صارتي ويلك حكي سينو كصو صاري فدي سينو حكي صو صار وحنا دبور دي سان كبحة وواحد اللي يكون مشغولية وواحد اللي يكون بابية وواحد اللي كرمه ضلك إني بالقات مركز إيدك اللي يكون مشغولية مركز إلهي سبحانه وتعالى كبغى أو ضد في عن نقطة أو مد إلهي أن حريسته نقطة إلهي سبحانه وتعالى ومدنا هون حريسته إلهي لما أنت بهينون حريسته إلهي سيدا سكوا ولا سنة كان سنة كيس الله ينتصو إلهي سبحانه وتعالى شرفته يمدنا أنت إلهي أمدنا صومالي الله سيو شرفته دي عزته دي كرامته دي دينته دي وناكسني الله يعليه إلهي سبحانه وتعالى لما أنت برواقه ينمت كليه صومالي الله ينتصو صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه